وعنا ونكسر خيارتنا اللي جسنا شيء مير والباتوكتان وقربت معاه سيدي لباتنك بش سبتمبر برنامج قربت ضدنا وحيلتها هي waxaanu ku eegaynaa marxuum Axmed Dawlo oo loo dilay dhawaan wiil uu adeer u ahaa oo beesha jareer u dhashay oo guursaday gabar aanay isku beel ahayn waa hab dhaqanka Soomaalida ee isma geyno Soomaali ka sareeyo ma jiro Soomaalidan gabdhooda maanta waxay u guursadaan Afrikaanka kale Itoobiya guursataa warnaagu xuduud ma leh naag qofka yarabtay guursanay haddaba muxuu ku salaysan yahay dhaqankan nasab iyo nasab dhimanka ee Soomaalidu ay ku dhaqanto wax sama laga qaban karaa iyasa ka qaban kara oo loo baahan yahay in ay tusaale noqdaan oo lagu daydo waa la arkaa waana la helaa dad shacab ah oo arintan ka guursaday beelaha la haybsoo laakiin arintan waxa aan sameeynin ee marnaba aan u dhabagalna u dhaqaaqin waa dadka bulshada ka dhex muuqda sida culimada baarlamaanka madaxda sare ee dawladda qodobkaas dooda oo dad akhyaariga ay ka qayb galayaan ayaa mar loo maqli doontaan halkaad nagala socotaana waa London waa tahay dad galabta ayaanu u garaynaa yaa nasab dhimana nasab dhimanaantan ma la dhaxlaa ma loo dhashaa ma la iska dhigaa haddaa tahay qof Soomaaliya ama qurun kalaba galabtay dooda jimcaha qodobkaas ayaanu si weyn uga eegaynaa waayo baryahan Soomaalida waxaa saaqay dhacdadii aad looga wada dharagsan yahay oo magaalada Muqdisho sidii argagaxa lahayd loogu dilay marxuum la oran jiray Axmed Mukhtaar Saalax oo Axmed Dawlo loo yaqaanay oo sida la wada qaray waxa uu galabsaday wiil uu adeer u yahay oo u dhashay beesha jareer ama Soomaali Bantu oo guursaday gabar jiraaca baa la yiri oo hooyadeedna ay diiday inuu guursado sida la sheegay dooda haddaba dhinacyo kala duwan ayaanu ku eegaynaa haddii ay barqaale ka noqdo 55 daqiiqo soo socda waxa marti noogu ah xildhibaan maxamed cumar dhalxa oo aan filayo inaad wada garanaysaan khadka Muqdisho ayuu telefoonka kaga jiraa iyo nabadoon jooga magaalada Garowe Cabdiraxmaan Jaabiri iyo injineer Jiro Shariif Aadan oo isaguna khadka kaga jira magaalada Cardiff dalkan Ingiriiska arada su'aalaha dhageystayaasha galabtuna waa ay noo furan yihiin gaar ahaan barnaamijkan iyo dooda iyo wixii ay ka qabaan sida aan loo socono kun iyo coacher ayaa laga dooday arrintan nasab sheegashada iyo haybsooca waxa xataa loo dalishaday diinta waxa la akhriyay taariikh hore iyo sidii waxaan ay ku yimaadeen in ay caado iska tahay oo aysan aqli badan ku fadhiyin qiil ma leh waa la leeyahay waa arrin soo jirtay si cilmiyana haddii aad u eegto haddii alla uu abuuray ummadiisa oo ay ku kala fadli badan yihiin sida ay caabudada ilaahay ama ilaahay ay u caabudaan markaas dadku ilaahay xaqiisa waa u wada siman yihiin waxaan ka ahayn cibaadadiisa marka maxaa keenay in habkan faqfaqda iyo kala nasab sheegashada haba jirtay maxaa keenay in uu ka sara maro ama ka fadli yeesho bani aadamnimadii iyo islaamnimadii akhyaartan marka hore u bandhigaya waxaan ku dadaalayaa anoo rabay su'aashaas inuu ku hormaro xildhibaan dhalxa oo wali khadka aanu ku raadinayno magaalada Muqdisho barnaamijkana nagala qayb galaya oo aan rabay inuu arrintaas fiiriyo isagoo marna xildhibaana aqoon-yahan ah si fiican hawshaas u garan lahaa waa tahay waxaan u gudbayaa injineer Yarisow oo khadka kaga jira magaalada Cardiff Ingiriiska injineer Yaro raalli ah Yaro Shariif waa ku maqlayo walaal waa tahay arrinta bal xoogaa ka taariikhe dadku siyaabo kala duwan bay wax uga sheegaan nin injineer ah aqoon-yahan waad la socotaa hawshan siday soo martay marar badan baad ka hadashay muxaadarooyin badan baad ka hadashay inaad wax ka qortana waa laga yaabaa oo aanan ogeyn marka diintii iyo ilaahay wuxuuna leeyahay ummadaydu waa ii siman tahay wixii aan cibaadada ka ahayn iyo sida ii caabudaan annagina waa u jeedaa sidaanu kala nahay iyo nasab dhiman baan ku jirnaa waxaana horta see ku bilowdeen taariikh ahaan seese laysaga dhaadhiciyey oo qaarna u aqbaleen qaarna ay ugu shaqaystaan waxa weeye waan ku salaamayaa idinka oo dhan bahdiina BBC-da iyo Soomaalida oo dhan dhageysanayso oo jecel xaqa Soomaalida hore loo soo noqdaan horta kalimadan nasab dhiman way meelaan dhigno meeshan waxaa jira faquuq aan dad loogu soo gaban tan iyo 60kii
xilligii aadan cabdulle cusmaan ogaa ilaa hadda madaxweynaha farmaajo uu joogo lixdankii may ka soo bilaabatay marka lixdameeyadii kontomeeyadii soo bilaabatay waxaan aan ka hadlaynaa waa bani aadan oo dhan bani aadannimadu haddaan gadaal aan u noqono horta waxa waaye yani primitive markii joogtay dhibaatadii jirtay waxaa la isticmaali jiray maaragtay awood dagaal qofka laga xoog badan yahay waa la iibsan jiray sida yaasir amaar ibnu yaasir sidii diinteena islaamka u joogi jiray waa nin lalahaan jiray waa laakiin carab oo cadaan oo sidooda oo kale ah laakiin waa lasoo qaatay waa la iibsaday nimankii furs waa lasoo gadan jiray waa la iibsan jireen marka afrikaankana ayaga awood dagaalna ma ahayn caruurta lasoo xadi jiray carabtaasaana xadi jirtay markii la xado maaragtay ilaa khaliijkana wax lagu iiban jiray dooni waxay kusoo mari jireen west africa ilaa maaragtay south africa iyo zimbabwe iyo kan marka alaa iyatal xaal soomaali dhaqan ahaan waxay u arkeen raggii ku dambeeyey oo iibka la iibsanaya dadka madowga oo jareerta ah ama qoomiyadda soomaali bantu ama qoomiyadda bantu oo dhulkooda loogu yimid ay ku dhejiyeen inay adoomo ay yihiin which is not true because maxay yeelay taariikhda soomaalida waxay ku tusaysaa shanguwaya dawladii shanguwaya la dhihi jiray ama kuwa xukumi jireen baraaba xukumi jireen kuwa banaadir xukumi jireen aniga qowmiyadeena bantuba ahayd cadeentana waa haysanaa cidii muran rabtana ay soo weydiiso aniga diyaarana waay waa tahay injineer yarow aad baad u mahadsan tahay waxaan u baaqayaa nabadoon cabdiraxmaan way maqlaysaa soo maaha ku maqlayaa labadan kooxood ee mujtamacu u kala baxay oo arrintan hadda ay dhalisay ninkan xamar lagu dilay oo wiil adeer u yahay uu gabar isku doontay see loo sharciyeeyey waxa kan bal xoogaa taariikhdii dib noogu noqo see qolana ku noqotay maaragtay qolada sare qolana ku noqotay kuwa hoose horta waxaan salaamayaa injineer yariisow injineer yarow yariisow waa duqa xamare xildhibaan dalxe waa ta cabdinuurba waa salaamayaa soomaalida dhammaan intaad soomaaliga taqaano dhegeysanaysa waan salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu yaan nasab ahayn shareecaddu waxay ogoshahay inuu nasab yahay qofkii ku saxan shareecadda diinta islaamka haysta oo ku saxan ma garat waa ta kaas ayaa nasab ah waxaan nasab ahayn qofkii shareecadda islaamka aan ku sugnayn markaan taa kasoo daadego injineerku wuxuu yidhi waxay bilaabatay arrintaani lixdankii ilaa dawladda hadda waxaan u arkaa ani quursi uma arko midabta koorna uma arko quuri waa wax la yidhahdaan u arkaa waxayna soo bilaabatay ilmo nebi aadan markuu haabiil uu mataankiisii u diiday ma garat waata marka waxaan u arkaa halkaa inay kasoo bilaabatay haabiil mataankiisii haabiil uu u diiday oo halkaasna uu geerihii ka dhalatay haabiilna lagu dilay marka quursi ma ahayn walaalay ahaayeen kala qabiil ma ahayn uma badani ma jirin waxay marka halkaasi noqotay in quuri waa la yidhaahdo arrintan soomaalida ku dhex jidhaa quursi maaha midabta koor maaha nasabnimo xumo maaha waa heshiis bulsho meel ku wada nool dhex martay oo aan isguursan jirin oo qolo walibana raalli ku ahayd soomaalidu dhaqan miyida kasoo jeedayo hiil iyo hoob ay isu geli jireen labadaa nin oo aan isguursan oo isku meesha ku nooli beelaha kale oo meelaha kale ku nooli haddii ay isdiridaan ama xoolaha iska qaadaan waa isu hiilinayeen xoolo qaysi bay laayeen ceel iyo cashin bay wadaageen daris bay ku ahaayeen wuxuu wiilkiisa kaga kalsoonaa ninkaa gabadhiisa aan geyin karin kanina kaa aan gabadhiisa geyin buu kaga kalsoonaa wiilkiisa ama walaalkiiba halka hiilku ka joogay raalli bay ku ahaayeen arrintaas heshiis bulshay ahayd ma garat waa tahay marka sidaasay geedii kusoo kortay oo waktiga kan casriga ay kusoo gaartay sidii baana lagu wadaa halkaasay maaragtay ka timi arrintan hadda axmed oo ninkaa ku geeriyoodayna dee tacsi awalna waa u dirnay haddana waa u dirayaa ma garat arrintaasna arrin aan soomaalinimada iyo islaamnimada midna ku wanaagsanayn bay ahayd laakiin arrintaani arrin la inkiri karo maaha waxa kalena quursi maahe waa quuriwaabay ka bilaabataan oo arkaa maxay ku kala duwan yihiin quursi iyo quuriwaa
quriwaad waxa weeye waa inaad qofkaas haddaba waxaa jira shareecatul islaam markii la yidhaahdo waxa bannaan oo aan la isku khilaafsanayn waa in gabdhaha la doonaa waa si loo ilaaliyo ciddiga iyo sharafta moogta oo aan dhibkaasoo kale u dhicinba moogtahay marka quriwaagu waxa weeye inaad gabadha nin adiga dadka ay isguursataana intii lagaa soo doono aad tiraadsiin maayo ina hebel sooma ama soo hebel maaha tayna taas oo xoogaysatay weeye oo qof intii habkaas ay u dhacday saa ku soo xoogaysatoo kala sooc yeelatay laguna raalli ahaa saasna usoo socotay annaguna yacni ma ahin dad dulmi xaq siinaye waxaan ka hadlaynaa wixii soo jireenka ahaa ee taariikhda ahaa ee dhaqanka soomaali ahaa waa tahay waa ku gartay aad baad nabadan u mahadsan tahay injineer yarow gabadha waa la boobayaa la leeyahay marka boobkaasaa wax keenaya masaafaa la yidhaahdaa anaa kuu sheegaa walaalkay meesha ka soo hadlay baan u jawaabayaa horta heshiis bulsho ma ah taariikhiyan haddaad fiirisid diinteena islaamka 1400 ka hor bay timid laakiin yani waqtigii Greega مثلا إثيوبيا مركز فيرسيت الوجه المحروق باليدا نك وجهيس جبن دجال وحكسا كي مادو مركز نك أود له أو عشان كرو بياه إلين كرو أما ماركي أو حول اللي هي أو ماشي حكومة أيا قبيل كدور الجري أو سوق قبسين جري قار عينا وكدين جري قارنا ماركي وهو استعمال الجري عبيد guryaha looga soo shaqeeyo ayagoo silsilada dhulka ku xiran uu ka dhigan jiray maxaa waay xiran uu ka dhigan jiray maxaa xoogaa ifasir waxaan ku yiri مثلا xeer buu ka dhigan jiray waa taa haye xeer buu ka dhigan jiray qaarna waa ku shaqaysan jiray yani anaga tanna haysato dibkana haysato waxa weeye dadkan afrikaanka meel kasta ha joogaan America ha joogaan meel kasta bariga dhexe ha joogaan ayaga ugu dambeeyay dad laga awood badan yahay oo la soo qabqabtay oo la soo xado ayagoo silsilo ku xiran oo suuqyaha la geeyo مثلا عربته وكل رابع البدوية مركي ليرا رابع البدوية جبدها لسوق قبنية ولا إبسنية ما أنا هذه نن أحير يا وينك كله هشيز كله قلايو أنا كلها أنا هذا أدوني هذا ما هذا الصومالي يقول هذا ما أساس كده عجير سيول اسكو أدون سنجري بس ضدك لا أنت برنامج كي معدان وضدك حيستاني وضمك رجع سنجرين ما الصومالي هرت أدون سيجا كلياني جي واحد وقت ولا ما ذي عرفتنا oo dadka ku shaqaysan jirtay adoonsiga markaas soo yimid laakiin ku xurba laha dhulka laakiin hadda sida aad wax u fasiraysa dad baa waxay u qaadan karaan annaga haddaan beeshaan nahay dad Soomaaliya ayaa sidaas oo kale qoorta naga xiri jiray oo sida nagu xiri jireen adoonsan jiray qodobka laga hadlaayana waxa waaye guurka iyo isdhexgalka bulshada iyo baa laga hadlayaa dadkan Soomaalida wada sheeganaya geographically isku wadan ah hadda waxa way mesela ka soo qaad Soomaalida jilaac iyo jareer baa jira mugsoon tahay ayaga nimankan maaragtay mesela ka dhig reer Puntland oo kale iyo dhulkaas iyo kale waxa jira dad la yiraahdo midge iyo gabooyi waxa jira taas kama imaanin heshiis bulshada kama imaanin awoodna kama imaanin waxa weeye qaladaad yar qabiil galay ayaa loo faquuqay loo gooyay waa la gooyay ba ما قولكاس عادي وفي عنتا وأقولينا إنجنير يرو هذا أمها سنتهاي حلي بان للحق وكحما إن تلافك اسكو مغلويني آخر كي محمد عمر للحق مدنها برلمان كفدرال كالصومالية وأصوغ على خطك حلي بان waxaa ku jira dood kula wadaagaya injineer yarow Shariif Aadan iyo Nabadoon Cabdiraxmaan oo khadka garow kaga jira injineerkuna wuxuu kaga jira magaalada Cardiff ee Britain waxay doodu ahayd war dhibaatadan aragnay iyo arinta tan ay u dambeysay ninkii magaalada Muqdisho ee lagu dilay oo sababsaday wiilu adeer u yahay baa gabar beel kale ah maartay guursaday darteed marka waxaan wax muddo soo taxnaa weeye mar walba tan oo kale markay dhacdaa lagu baraarugaa diinta baa laga sii hadlay oo waxa la yiri Ilaahay adoontiis waxa ugu kala duwan tahay un kaliya waa cibaadada maxaa marka tan keenay sidee marka nasabkan iyo nasab dhimankan la sheegayo
looga saramariyey bini'aadamnimadii iyo islaamnimadii halkaasay noo maraysay waanu kula sugaynay maadaama xildhibaan aqoon-yahan aad tahay waa mahadsantahay BBC waa salaamaya asxaabta sharafta leh ee khadka igala jirtana sidoo kale iyo intana dhegeysanaysaba murahan waad og tahay mar haddii ilaahay subxaanahu watacaala uu noo sheegay inaan kulligeenna aan nahay ilma aadanana laga abuuray doobo oo aanan jirin qolo iyada wax gaar ah ee kale laga soo abuuray horta halkaas ayaan ka wada nimid oo sinaan oo dadka oo dhan hadday aadan aabbo uu ahaa hooyana ay u ahayd xaawo ilmo xaawo iyo ilmo aadan hadda waxay ayaga ku kala fiican yihiin in laisweydiiyo laftirkeeda waa wax haddii ciid laga wada samaysan yahayna wixii iyagana kuwana iyaga isu arkeen inay ayaga ay yihiin kuwa kale ka roon waxaan laakiin waa wax musalsal iska soo ahaa ee adduunyada marba heer soo taagneed hadda qolada kale ee iyada ama ay uga adkaato dagaal ama ay siyaabo kale uga dhaqaalo roonaato ama iyada ay istiraado talada idinka macase ay idin hoos timaadaan iyadu usoo maaragtay qab weynaatay oo iska soo maaragtay faracantay wax weliba keentay inay ayada salka hoose ay u daadegto ilaa maanta nin weliba isaga meesha uu wax ka ahaa ama sida uu asagoo u noolaa lagu sifiyo kii markaa sida isbida inuu wax yahay kii kala quursada waxaa marka kulli ma aha wax maanta le oo loo raaci karo waayo markaan tusaale kuu soo qaado dadka soomaaliyeed ee hadda la haybsooco haddii la yidhaahdo dadkan waqooyiga u badan xaggiisa dadka riibnaha la yidhahdo taariikhdu inay ahaayeen dad ayaga talada mar un dhinacaasi waqooyi gacanta ay ku hayeen oo yibir ay qaadan jireen oo dadka baad ay ka qaadi jireen oo ayaga halkaas taladooda ayaga ku tirsaneyd bay ahaayeen dhinacaan boqor markaas soo aadida dadkan la leeyahay waa jareero waa sida waay kan la leeyahay boqormada xoogii ee soomaaliya midkii xasanshiid iyo faacidii kusoo dhaweeyey ee xarunta uwey gobolka dhexe ee aan idhaahday shabeellada dhexe deni jareer buu ahaa marka iyo adiga aad soo qaadatid gosha iyo dhulka iyo tan boqortooyada sidaas oo jareer buu ahaa waxaa maanta ayaga ay sheegayaan taariikhdooda hadda markii loo fiiriyo xataa gobolada baa iyo boqol waxaa lasoo qaataa bidabaalow fayla-aanow iyo geedibaabo kulligood waxa waaye waa un dad jareerna hadda waa tino oo nafsiskeeda ma aha nasab iyo maaragtay iyo ku aftirsiino iyo wax lagu keenay laakiin waa abuuris eebe ee lagu fuquuqay waa tahay xildhibaan luqadana maayi maxaatir bay ku kala soocaan waxakan waa wax dad bunbuuniyey ee laakiinna loo sharciyeeyey loo dhaqangeliyey hataa iyaa looga dhigay maaragtay wax oo rasmi ah oo sax ah inay ku dhaqmaan soomaalida caado looga dhigay xildhibaan dhalxa aad baad u mahadsan tahay iyo ustaad cabdiraxmaan iyo injineer yarow mawduuca waa sii wadaynaa fari kama qodna 1 iyo 2 ma joogto waxaan markaan jeclaan lahaa bal dhegeystayaasha lafahantooda bal aaraadii kala duwanaa oo ay ka dhiibteen mawduucan intii cod ahaan noogu soo gudbisay bal qaar ka mid a inaan idin maqashiiyo waxa waadan kulmiye xawakiin oo joogta magaalada Hargeysa haddaan raygayga ka dhiibto dad jimcaha waxay ila tahay anuu waxaan ka qabaa la iskuma doorto qabiil balse waxaa dadka iskuursanaya la iskugu dooraan oran lahaa anuu dihaan iyo dhaqankiisa qofka iyo dabeecadiisa waliba laakiin haddii dadka Soomaaliyeed eegno inuu qofku qabiilkiisa la eego waxay ila tahay waxa wali ku jirta Soomaaliyeed madowtinimadii hore. السلام عليكم BBC magacaygu waa Faarac Abduseen Guur oo jooga gobolka Mudug aniga ra'yigayga waxaan qabaa ummadda Soomaaliyeed inay tahay dad isku nasaba isku diin ah isku af ah isku midab ah laakiin ay jidho waxyaaba la dhaxlay oo waxa weeye jahilnimo ah oo mar hore la dhaxlay ay jidho arintaasna arin waxa weeye u baahan in loo gudbo dawlad xoog leh in la helo oo arintaas ilaalisa oo dabar goysa iyo maxkamado arintaas ku shaqo in la helo sida darteedna baa loo gudbi karaa baan isleeyahay cunsuriyada iyo haybsooca ka jira dalka Soomaaliya. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقاعيق وسيد كعب رون أهانتي هيبسوع وسوت شري إن بدنا شري سعدنا أو حب الله قبن وحق قبشة سنة أفكار النقطة وحي لا تهي وح الله قبن كرا أقوياء كالصوماليات علماء الصوماليات يدولة الصوماليات أو سي بدر
oo cad mowqif adag uga qaata si loo dabargooyo dhaqankaasi. waa Falastiin Khaliif Yuusuf waxaan ka soo hadlayaa magaalada Muqdisho aniga waxay ila tahay waxaa nasab ah cidii diinta islaamka ku dhaqanta muslimkuna uu ka nabad galo waana arrin laga xumaado dhacdadii ka dhacday magaaladan Muqdisho waxaase looga hortagi karaa in arrintan wacyigelin laga sameeyo shuruuc degdegana laga soo saaro oo cidii ku dhaqanta lagu xukumo waa mahadsantihiin BBC dhegeystayaashaasi aad bay u mahadsan yihiin qaar kale oo iyaguna mawduuca si kale uga hadlayana waa noo soo socdaan injineer yarow professor Dalxa waad maqlaysay taariikh buu ka sheekeeyey adna mar dhaweyd waxaad ka sharqamisay in la kala yahay jilaac iyo jareer markii ninkan marxuumka ah ee xamar lagu dilay eersaday wiilku adeerka u yahay gabadha reeraha kale aroosay ama guursaday ama doonay loo diiday dhibaatadani ay ka dhacday waxa la yiraahdaa wiilku wuxuu ahaa jareer adigu taa waxbaad ka qabtaa taariikhiyan oo waxa aad leedahay dadkan noocyo kala duwan bay isugu jiraan bal iyaga xoogaa nooga fasiro dadka ka jaahil bix horta midaan kuu sheegaa en gabasho lahayn mujtamac waxaa ku jira wax la yidhaahdo faquuq kala fakfak iyo oo totally loo qaatay qowmiyadan bantu ama jareerta dad yuudaan qaban raashin lala cuni karin sabab hadanin gacmihiisi maal iyo bilaaya ka socoto soor afka ma la fuujin kartaa soomaalida wax ka xumay inaan taa yidhaahdo taas wayna istaagtaa midi kale loogu istaagi karo oo laga joojin karo ama waxa weeye ha qaraaraado ra'yi baan idin sheegaya in la helo protection zone oo lagu ilaaliyo nin walbo jareerta 9 gobol iyo nus aan dhaha 9 gobol iyo nus 9 gobol hiiraan laga soo bilaabay la Kismaayo waay nusna waa Puntland sababtu waxa waaye 25 dad jareer waay ma garatay marka maxaa waay marka ma waxaad leedahay jareer meel kastoo ay joogto waa ku dulmantahay marka protection in loo helo hadii protection no macnaha ayaga maamulkoodii waa tahay waxaad tiri 9 gobol oo wadanka fiir engineer qofka ku dhageysanaya waxa aad ku tiri boqolkiiba 25 bay ka yihiin 9 gobol oo kamid ah 18 gobol ee wadanka haddana waxaad leedahay ku dhihin 9 gobol waa majority u badiyeen aan ku dhahay haye Puntland hadii la yiraahdo 25 aan ka ahayn ku dhahay boqolkiiba dadka ku nool haye macnaha majority dhulka Soomaaliya dadka saas u badan marka maxaa iyaga xuquuqdooda ka indha tiray marka iyaga laftooda fiiri dhagayso dagaalada aan ku sheegayo sida Dalxa uu u fasiray ninka laga awood badan yahay asaa la xukumaya adduunyadu waa saas weey hadda oramada ka soo qaado for example boqolkiiba 75 way Ethiopia hadii loo eego dadka ugu liitana ayaga weey marka dagaal iyo bilaay waxaan laakiin kan dagaal ma aha faquuq aan ku yiri faquuq yani uumashtaada lagu faquuqayo aniga ilaahay haduu saan ii soo sameeyay ma ilaahay baan la dacwoon kara ummadda Soomaaliyeed meel kasta ha joogto oo diinta nin walba afkiisa ka soo baxay maba aaminsanaa ninkan in ilaahay soo uumay ma hadii hadda engineer hadda faquuqaaga aad sabab uga dhigayso dilkii ugu dambeeyay xamar ka dhacay bulshadii oo dhan baa ka xumaatay oo aad iyo aad maaragtay maya Abdunuur walaalkay kan wuxuu soo bilaawday aan ku dhig kontomeeyadii daakhilidii markaan haysanay 60meeyadii ragii la rabay inuu u horseedaan shuruucda ay ku adkeeyaan ayagaa u kacay ilaa hadda madaxweynaha dalka joogo maxaa jira madaxweynaha Soomaaliya maanta waxba magacaabaya qabiil aan maanta oo ku raali galeynin magacaabid ma jirto nin jareer oo magacaabay ama goboladana ayaga u badiyihiin oo wax soo saarka ay leeyihiin farsamadii ay yaqaaniin oo indhihiisan arkaynin taas nasiib daro sorry nin mutacallim waayahay raalli ahaw dawladda waxaaba nagala jooga xildhibaan Dalxa xildhibaan Dalxa asoo oynayo kursigiisa laga qaaday oo maxkamaddu u soo adeysay marka xildhibaan adiga ha u hadlin xildhibaanka isagaaba noo jooga xildhibaan Dalxa ninkaan kala qabo hello
runtii waa mahadsantihiin runtii dadka horta badi ka yani tacsiyeeyey ama ka dejiyey soomaali meel kastoo ay joogaan dilkii axmed mukhtaar saalax ilaa iyo dood fara badan ee dhalisay horta waxaa meeshaas aan doonaynaa inaan kaga mahad celino intii dareenka maartay ee soomaalinimo muslimnimo iyada ka muuqatay ilaa iyo manaahadana u taagan meel kastaba ha joogaane laakiin dooda ku saabsan istirfaduuqa iyo midab kala sooca sida hadda soomaaliya hadda uu usii socdo ama soo ahaan jiray maalinba laftirkiisa heer buu soo taagnaa wakti maaragtay bilow ah oo hadda markii laga soo bilaabo wakti waxaana soo maray oo nin jareer ah oo aan hal wasiir ah oo isaga siduu ku helo ay adkayd oo iban aanan la siinin kuraas baarlaman oo tiro maaragtay la tilmaami karo iyadoo inta uu sheegayo injineerka runtiisa ay tahay dad tiro badan oo majority wadanka gobollo fara badan dega aada iyo aada loo yaqaan wax soo saarka iyo qiimaha dalka ay ugu fadhiyaan haddii gobonnimo la yidhaahdana xisbiga israa'iil dadkii hogaaminaya ay yihiin oo cabdiqaadir sakaawidiin ugu horeeyo oo khaliifuudow macalin uu ka mid yahay 13 dhalinyaro ee baarba hadiiba gobonnimada xataa laysku abaalmarinayo waxay ahaayeen dadkii SYL ee ka dagaalgalay isticmaalkana dadkii sida cad ee shabeellaha hoose markuu socday ayaga iyo biimaalka isku dhinac maartay ka safnaa ee ay ahaayeen dadkii iska diiday gumaysigana si gaara iyaga uu u beegsanayay weliba uu ku tacdifalay waxa kanna waxuu oga tagay qaraadigiisii dadkan dalka uu is yiri hadday iyaga xoogaystaan malaha qaaradda ayuu fiiriyey wuxuu ku xisaabtamay tirada dowladaha jareerka ay 48 kor u dhaafay 50 iyo dhowrka dowladood hadday dadkani iyaga ay iska saan qaadaan malaha dhibaato ay kaaga imaan karto ideology ku dhisan ayuu tusay ayuu baray dadkii baro Talyaaniga ahaa kuwaasuna dardaaran ooga tagay deegaamada ay degan yihiin oo dhan markii baarlamaan la qeybinayay kuraasta waxaa looga dhigay meeshii ayaga ay ku degan yihiin xataa 300 400 500 kiilo hal kursi ayaa looga dhigay halkii kursi oo dad kale marka ay gacanta ay ku dhigaan ayagoo dhanba sidaa marka ay uga fogeeyeen inay ka tafooreen inay siyaasadii ay qeyb ay ka noqdaan oo halkaas dagaal ahaan loo raaciyay oo wax waliba oo marka oo ayaga dadka lagu reebi karo waxbarashadii lagu sii daray way jirtaa inay amurahaas oo qodob aad u fiican waaye waa jeclaan lahaa inaad qodobkaas dib in yar igu dhigto engineer yarow iyo xildhibaan dhalxa iyo nabadal cabdiraxmaan aad iyo aad baad u mahadsantihiin khiyaarta la dhegeysanaysa waxaan idin xasuusinaynaa barnaamijka waa dooda jimcaha ee BBC Soomaali waxaan u baaqayaa nabadoon cabdiraxmaan magaalada garowe khadka kaga jira dooda waa aad maqlaysay dadka nasabka inta badan sheegta waxaa la yidhaahdaa waa u qarsoon tahay ma sheegaan arrintan waxay u cambaareeyaan falalka dhacaya diinta qabta ilbaxnimo maaha dadnimo xumo waaye afka baarkiisa idinka tahay baa la yidhahdaa waana caqabadaha hortaagan inaan arrintan waxba laga qaban laba arrimood midba waxbaan ka oran doonaa insha allah binillahi alkariim waata horta xildhibaanka aad baan xurmo weyn ugu hayaa yarowga xildhibaankaygii weeye guud ahaan dee waxa weeye 18 gobol iyo 92 degmo ayuu dhammaantood matelaa waata taariikhdu buu kasoo sheekeeyey waxaan u arkaa siduu xildhibaanku sheegay inay kor u socdaan oo maaragtay waqti maaragtay deegaamadooda xataa wixii loo qorsheeyo dad kale kusoo bixi jireen baa jiru yiri haddana lama gaarin buu yiri horta aad iyo aad waxaan usoo dhaweynayaa maaragtay ilbaxnimada cusub oo maaragtay ay la jaan qaadeen dhammaanna soomaalidu la jaan qaaday qof kasta oo soomaaliyahina waa inuu xuquuqda uu leeyahay oo helaa qayb kasta fulin golaha sharci dejinta aqalka sare dhammaan hay-adaha dawliga oo kale waa inay helaan deegaamadoodana dawladdina waana maqlaysaa halkan waxaan u marinayaa inay xuquuqdooda helaan waana socdaan annaguna waa kusoo dhaweyneynaa
cid kastoo yani haddeer qabiil kastoo aa weydiisaana wuu iska sheeganayaa laakiin 100% ayaan raalli ka nahay xildhibaankuna dee waxa weeye xildhibaan aad noogu qaaliya weeye oo shaqada iyo maaragtay firfircoonidiisa iyo maaragtay inuu hariba waayo haddii mar maaragtay gees la geliyeyna waxa weeye sharci xuquuqna waa uu ku helay dadnimadiisana wuu ku helay annaguna waa ku soo dhaweynaa waa tahay aad iyo aad baad dhinacaas ugu mahadsan tahay iyo sida fiican oo aad u sharaxday tii kale ka waran iyada gabadhii iyo wiilkii reerahan isma geynada iyo waxa aad ka taagan tahay mowqifkaaga ama aragtidaada guud annagu afka baarkiisa naga maaha taariikhda aan ka hadlay waxba kuma kala duwanin xildhibaanka waxaan inay wax soo jira yihiin wax raad horele inay yihiin welina inay wixii socdaan waktigan casrigaana wixii sii dhammaanayaan maaragtay halkaa yarow iyo maaragtay xildhibaanku waa ku kala duwan yihin xildhibaanka waxba iskuma sheegelin oo waxba kuma kala duwanin waxa kani waxay ahayd wax caado ah arrintan lamaanaha hadda arrintooda cusub tahay waxa weeyaan waa wax maaragtay soomaalidu dhaqankeedii ugu dabaqay hadda oo waktiga kan maaragtay aan haddeer maaragtay olala u baahnayn ilaa xadkaa la gaarsiiyo sidadana shareecaddu waxay ka qabtaa guurku inuu yahay yani loo ordayayo oo soomaalidu meesha tiraahdo waa loo ordayayo kale waxay qaadisan tahay qofka gabadha in loo guursado wa jamaalihi quruxda wa diinihi wa nasabihi wa maalihi intaa in loo guursanayo marka inta kale waa kuu gartay tan nasabka maxaad ku fasiraysaa mar haddaad diintii soo qaaday ilaan qodobkaasaanu ka hadlaynay hadda adigu cidda aad nasabka u haysato iyo cidda aad nasabka u haysan waa ku kala socan yihiin soo ma nasabka waxaan ka dhigayaa kuf oo kale in kharkaan la guursan karo oo kale ma garanaysaa darawalna ninka darawalka gabadhiisa guursan karo shiikhuna shiikh guursan karo sidaas oo kale kuf bay noqonaysaa nasabihii markii la yidhaahdo shayga waxa ku aadan oo kale uu noqonayaa ma garan waata marka arrintaasi marka waa sidaas nasabku taasuu noqonayaa quruxdana waa jirtaa maalkuna waa jiraa dee waxa weeye nasabkiina wuxuu noqday kufkii marka macnaha sida aan kuu fahmay ma waxa weeye jareerna jareer ha guursado jileecna jileec ha guursado maya horta jareer hadduu guursado hadda waa nin walaashii guursaday hadduu jileecna jileec guursado waa nin walaashii guursaday aniguse wax u kala aasayn mayo koonto u samayn mayo ma garat laakiin meesha ay iga weydiisay nasabku muxuu yahay nasabku waxa weeye shayga wixii u dhigmo weeye oo kale laakiin kuma difaacayo umana qalanto gabadhe hadday wiil guursato horta haddii nidaamkii la maro oo doorka ahaa oo birtanbiya waxaa la yidhi gabadha saasaa lagu guursanayaa inay sidaa tahay sifooyinkaa leedahay guurkana waxaa la faray in gabdhaha la doono waxaana lagu ilaaliyay xuquuqda gabadha iyo xuquuqda wiilka oo wixii hadda dhacay inaanay dhicin waxaana u arkaa tallaabooyinka oo mar kasta innaga sharcigu ina hogaaminayo oo marar badan yaa nasab ahayn qofkii diinta haystaa nasaba horta waxaa rabaa si aan uga hortagno dhibaatooyinka inaynu horta maaragtay aynu wadooyinka marno oo maaragtay qofku waxa weeye la bixitaan gabadha hadduu la baxo horta waxaa rabaa inuu waalidku raalli saa ku noqdaan ama in laga doono ay bixiyaan labaad qofka islaamka ah waxaa la rabaa minada meeshuu dhigayo laftigeeda inuu ka fiirsado waa shareeca weeye qofku minada meesha u dhigayo waa inuu maaragtay u garanaya marka dadkaani dad anigu ma lihi jareer ha guursado jileec ha guursado dadkan dad islaama weye dad isgeyo weeye laakiin dadka xuquuqdooda iyo si fiican baa kuu gartay cabdiraxmaan aad baa u mahadsan tahay xildhibaan dhalxa wiilku haddii uu gabadha doonan lahaa oo reerka u imaan lahaa oo ninkii dawle ahaana lama dileen hawshana waa iska dhammaan lahayd ma kula ta adoorow malaha weynan dadka qaarkii aanan si cad maarta sheekada aanan u helin wiilka aabihii dhalay ama adeeradiisa ee gabadha inay bixiyaan shareecada iyo xeerka soomaalida uu qorayo way doonteen wayna siiyeen aabbaha iyo gabadha hooyadeeda ayaa kala fikir ah hadda wiilka ee gabadha aabbaheeda ee guursaday
dadkeeda hadda ma la dhihi karo dad liita waaye abgaal cismaan oo mudullood ah oo hiraab ah haddii litacaarafuuda aan u dhigo ayay ka dhalatay ee gabadha ma la dhihi karo gabar oo maaragtay xataa dhinaca ayada kale way ka tahay oo maaragtay ee dadkan kale ee wixii rabo laga sheegay laakiin ma marka gabadha aabaheed waaba bixiyeyba inay la qabaan ya gabadha aabaheed waaba bixiyey aabaheedaa bixiyey adeeradeedaa bixiyeen tolkeedaa bixiyey laakiin aan qihi maayo dhinaca hooyada dhan u saarin maayo oo familka iyo reerka ee ayaga iyada ku abtirsato laakiin mid ayada ku kooban qoys ahaan aragtideeda iyo wixii la qaba wax ka dhalatay ayay yihiin maxaa yeelay annaga heerka hasta la gaarsiinayo ee dad isku wada deegaana iyo dad iyada siyaabo kale ee dhaqankooda hoose oo intaan la sheegayo in kasii duwan ee la kala guursaday oo ilmo la kala haysto oo wiilka inta hadda uu qabo oo maartay walaalkii midba mid bay ka soo jeedaa xataa wuxuu yani uu qabaa in adeerkiisa maaragtay ninka la dilay ama walaalkii gabar kale ee soomaaliyeed ee daarad ismaaciila ee mareexaan u dhalatay oo laba cunug u dhashay oo meelaha hadda iyada dibadaha kasoo hadasha waxyaabaha ma doonayn inaan afka aan ku ballaarin laakiin saan dadka ugu iftiimiyo qabka hadda qof weliba hadda ee soomaali meel walba dhigay nin walba waa ku jiraaye wuxuu doono asaga ha ka timaado qabkiisa laakiin dhiman la yidhaahdo iyo waxaa la is aaminsiiyeybo waxaa wax weliba annaga ee meesha hadda u baahan in la galo ee la ogaado dhaqankan hoose ee ka baaba'san ee micno ahaan dadka soomaaliyeed ee haddii kuwa tintooda adag keliya lagu liidayo oo haddana oo tin adagna afrikaannimo oo ayada ka turjumaysa iyo madowgeeda israacsan soomaalina dal afrikaan oo 58 dowladood wax u dhow oo ayaga 50 meeye ee afrikaan ee tin adag ay yihiin ninka asaga ku guursanayo tin adag meeshuu asaga uu rabo inuu geeyo asaa sheegaya magaciisa iyo meeshuu qaarad ahaan iyo ummad ahaan uu ku abtirsado laakiin waxaan hawaawiga ah ee laska dhisay soomaalida iyo xataa haddaa kenya adi atagsi ninka soomaaliga ninka kenyaanka wuxuu leeyahay madowga asaga iyo madow ayuu haddana ku kala madow dadka qaarkood way iska maqleen waxa ay ula jeedaan garan maysid laakiinna meesha saaxiibkayga ee aan idhaahde puntland yarow shariif waftirkood xataa waxaad moodaa gobolada soomaaliyeed in lakala ilbaxsan yahay maxaa yeele dadka jareerta u tilmaamay jareer ma yidhahda reer puntland waxaan kusoo arkay hadday ayaga waryaa kima yar waryaa kima yar magartay xataa way asluugaysan tahay ma garatay xoogaha jaraarkii la diidaya in jareernimo hadda horta laysku faquuqo haddii ayaga ay waxeer noqotay maxaa midge iyo gabooye iyo yaxar iyo madibaan iyo oo qurux iyo timo oo maaragtay intii la doono ay ka ilaahay ku manaystay ee joog iyo jamaal leh hadda iyaga lagu faquuqay haddii kuwana timahooda walba lagu faquuqay maxaa kuwa kalena timahoodii iyagoo jeclan loo faquuqaya kuwaas xataa maa la nabadgeliyo aad iyo aad professor dhalxa aad baad u mahadsan tahay waa xildhibaan maxamed cumar dhalxa khadka ayuu magaalada muqdisho kaga jiraa magaalada Cardiff ee dalkan Ingiriiskana injineer Yarow Shariif magaalada Garowe nabadoon Cabdiraxmaan aad iyo aad baa u mahadsantihiin barnaamijkii weli waa noo socdaa dooda waa soo maqalnay 45 daqiiqo la soo dhaafay iminka bal akhyaarta waxaan weydiin doonaa bal waxa xal noqonaya maadaama doodan ay nagu dheeraatay laakiin qaar kamid ah dhageystayaasha bal aan ku noqdo waa Abukhadir Cali Saqawdiin oo ka soo hadlaya tale aniga waxay ila tahay arintaasi mid aan wanaagsanayn hore ayaa ugu horay boo ka hadlay dhacdadaasi si aadna ugu falanqeeyay buugiga ma jirto qabiil ka wanaagsan qabiil waxaan u jeedinayaa dawladda Soomaaliya sababta hore ay u sameeyeen 4.5 micnaha qabiil lagu tilmaamay 0.5 muxuu sameyn karaa dhibaatada ugu badan waxaa leh shacabka Soomaaliyeed magacaygu waa Maxamuud Maxamed Ismaaciil oo jooga magaalada Muqdisho arintan guurkan iyo arintan xalinta leh ee soo ka dhacday Muqdisho waxaan dareenkayga ku cabirayaa heesta asbuuca yeerayadan jacayl oday ma loo dilay aroos hooyadeed iyo wali habar ma loo xiray xididkoo heshiisnayn aroos qaran ma loo dhigay xildhibaano qaasiyo dadka qaar ma bixiyeen haddaan la isqiyaamin qalad iyo ujeed jirin dastuurkeena qaran iyo qaybsiga wadaaga ah 4.5 inaga tira garaarkii aan arintan kaga hadlayay oo dareenkayga ku cabirayay waa anigoo ah Xaawakiin Daayir Gawure joogto magaalada Muqdisho Soomaali ka sareeyo ma jiro waxaas waa waxa noo keena dhibaatada iyo barakaca
ilaahay ha laga cabsado dadyo waxaas aan iska suulino Soomaalidan gabdhooda maanta waxay u guursadaan Afrikaanka kale Itoobiya guursataa warnaagu xuduud ma leh naag qofka rabtay guursanay magacaygu waa maxamed cawil axmed waxaan ka soo hadlayaa magaalada Boosaaso runaantii waa arrin casr jaahiliya lagu soo gudbay aad baan uga xumahay balse aan xalka waxaan u arkaa dadka hadeen ku jirin xagga siyaasadda wayna ku jireen 4.5 wayna ku jireen wasiirada ay ku jireen xildhibaanada ilmaha in bulshada dhexdeeda iyaguna sumcad ku yeelanayaan way waxaad moodaa xagga dawladda way ka dhinteen xagga siyaasadda kalena way ka dhinteen marka waxaan oran lahaa dadkan waa in xuquuqda siyaasadda laga siiyaa dadka culimada iyo caamadan waxaan oran lahaa waa in loo kacaa si dadkan lagu wacyigelin lahaa midabta koorkan xun ee lagu hayo aad iyo aad bay u mahadsan yihiin qaar ka mid ah dhegeystayaasha laanta af Soomaaliga oo ka qayb qaadanayay ra'yigoodana ka dhibanayay barnaamijka dooda injineer Yaro Cabaar baad shibtiri waad amustay injineer Yaro Shariif halkeen haddii dadkii oo dhan aad maqlaysay la yiri waxaan waa khalad dhaqan xun waaye diin kuma salaysna xagee waxa laga sixilaayaa marka mar walba haddii saan lagu soo celceliyo Abdunuurow su'aashii adaa ila soo daahay mooy aniga ma aamusin waa maqlaay waan kula socday aniga عاطفت كما سعون كرو أنا وحن ربا ومد جرتو سوماليا جيست أفريقيا لغيهلو وهذا أقانا جمهورية عنصرية سوماليا وين لو هي هرت إلا شرعي لغيهلو كان كلا اللبات إلا هلو protection دكا بانتوغا قبلة دقين لغو إلاليو كوا قبويها وقوي لوكا دقين لغو إلاليو أنا كتاسن وانا codsigan international community ina waa horin Soomaalida markan ka daal protection marka ay leedahay marka dadka u fasirmo waxa ula jeedaa ciidamo ajnabi oo ilaaliyo in loo keeno oo meelo loo gooyo gaar ha exactly hadee ninki Soomaaliga aha oo soo dhaweysay wax kasta u sameysay doosan ku galay marka ajnabi waa inaad keenta ayaga taas abuuray kow Soomaal laba Soomaal okay Soomaali hala fadhiiso taasna waxa ku dhawaaqi kara farmaajo iyo khayre iyo kuwan oo ma aqalka sare u buuxan ku waliba wadanka dambiyada ay geysteen laakiin hadii dambigooda ay ku soo noqdaan arintan ay ku fikiraan that's fine ma Soomaali sidii hore aan ku socono laakiin waxa way in doolo wuxuu yaqaan gubis ma ka say muufu dhan ay yaqaana wax kasta way la qaybsada baarlamaankii la qaybsada wasaaradii la qaybsada dastuurkan hadda jiraan la tirtiro gubigiisaba barke anaga kuma jirin wax aan ka sameeyay waxa ka dhahnay male sababtu ay tahay waxa weeye dastuurkaas yani mesela dadka soo duulay oo koonfur yimid oo dhibaatadan keenay war waxa jira niman oo naagahooda la watay duurka la geystay hadda ilmo lagu dhalooya oo masaajidka astaghfirullah ku hayo macna he doesn't know astaghfirullah ma ogaba wax ilmu jeedo marka walaalayaalo baata kiyaare ama jiidiya lunga talyaaniga oo dhaha runtaan usu sheegno inna wada noolaana rabna sidii lixdameeyadii xamar waxa ahaan jirtay meesha tan oo xamar weyne iyo banaadir xamar weyne la dhihi jiray iyo boondere iyo maxaa la dhihi jiray buuru korole la dhihi jiray ama buule eela la dhihi jiray xamar intaas ay ahayd yaa deganaa waatahay injineer si fiican aan ku gartay xildhibaan dalxa waa ka daahay raalli ahaa injineerka waa maqlaysaa waa maasantahay injineerku waa mahadsan yahay injineerka waxna waa ku raacsanahay waxna xoogaa yar ma ku raacsani in cadaalad darrada lagu hayo dadkan sida gaarka ah ay uga maqan yihiin wax badan iyaga ay u lahaayeen xaq sida Soomaalida kale in ay dawladdu ay sidaasi inay u maaragtay bixiso Soomaalida kale waxa iyaga maaragtay ama siyaasad ha noqoto ama amni ha noqoto ama dhaqaale ha noqoto ama bulsho ha noqoto waa la wada ogyahay waa la wada garanayaa waxa 4.5 kan hadda laftirkiisa waxa uu si dadban u yahay qaybto oo aanan maaragtay muuqanayn laakiin waa indirect oo discrimination oo lagu sameeyay dadka Soomaaliyeed ee barbaartiin la yiri oo in kalena waxa kaasay ka bilaabanaysaa shacabka Soomaaliyeedna iyo inta kale ay talada ka go'do inay wax ka bedelaan waa laga maarmaan dawladdu power sharing-ka inay saxdo oo qolo waliba ay wax ku siiso si badan badnaantiisa si yaraantiisa maamul goboleedyada ay dabaqaan cadaaladda say u noqoto mid meelooda ka tusha laakiin ciidan ha loo keeno oo jareer keliya ilaaliya haddayba kuwaas ilaalinayaan haddeer ay Kenya iyo Uganda ay joogaan wax ilaalin lahaayeen
kuwaasay wax maaragtay ummadan ayaga u qaban lahaayeen wax naloo keenayo ma jirto soomaalida kale waxay ayaga ay ka dhexeeyaan ayaa nagala dhexeeyo adduunka intiisa kale wax gooni oo anaga dad gaara loo ilaalinayo oo ayaga siday xabsi ku jiraan oo kale aan codsanayno arrintaasi ma jirayso saaxiibkayga taa waa ku haystaa mana soo dhawaynayo laakiin waxaan qabaa in cadaalad la helo waa lagama maarmaan dadkan waxbarashada waa laga baabi'iyey in laga dhisto waa halkeeda wax soo saarka ayagoo beerahooda in la horumariyo iyo meelaha ay degan yihiin way ka liitaan ummadda soomaaliyeed la-aan kuwo kaloo xataa beelaha kale ee soomaaliyeed ee ayaga annaga aan isha ku hayno oo ku dhex baaba-ayo ayagana magaciina wata oo beelahaasi waaweyn wayna lahay ee laftirkooda ee dulman aan waxba doorinin point five-kana way jiraan waa tahay waa wax cadaaladmuday laakiin waa la kala badsaday dalxa aad baa umahadsan tahay engineer waa maqlaysay xildhibaanka aad iyo aadaan u maqlay waxa jawaab baan ka leeyahay horta nimankan amisom international ma keenin ragga maanta soomaaliya qasa ayagaa soo abuurtay ayagaa keena ayagaana u shaqeeya aniga taasi kama hadlaayo haddii aan optionka aan sheegay laba option baan sheegay either in la helo protection zones oo hataa gabooyaha loo sameeyo haddii la waayana wax kasta indhoolo waxaan ku iri muufo dhan u yaqaana aan wada qaybsano xaqaanu u leeyahay haddii dhul ahaan la yidhaahdo haddii dad ahaan la yidhaahdo haddii wax soo saar la yidhaahdo xaggee lagu arka adduunyada dadka meesha biyaha degan ayaga minority ah dadkii kala badan meeshan waxa waaye awood baa la isticmaalaya weli farmaajo khayr waxaan ku celcelina haddii idinka ummadda soomaaliyeed idin soo dooratay aad ka damqanaysaa dhibkan sidaa idin sheegaya annaga waxaan rabnaa dastuurkaasi la bedelo oo garoobe laga keenay oo lagu gumaadayo ummadayna oo ummadda soomaaliyeed oo dhan dastuurkaasina annagaa wada fadhiisanayna reconciliation adduunkana markhaati ku ah annagaa wada fadhiisanayna waa dejinayna waa laga dhabaynaya wax kastano according to the people ama 50% ha noqdo yaa kismaayo maxaa ka socda heebaha kismaayo markaa tagti lafaha okay engineer aad iyo aad baa umahadsan tahay engineer waxaan u gudbayaa cabdiraxmaan nabadoon cabdiraxmaan halkeen hadda waa maqlaysay sidii professor dhalxa u taxliilay iyo engineerkoo ka dambeeyey marka inta aynaan u gelinin ugu dambayntii iyo bal cid walba inta aad u aragtaan aqoontiina iyo way aragnimadiina waxa xal noqonaya arrintan hadda uu injineerku keenay oo ka keentay dadka iyaga meelo gooni inta waddanka la dejiyo hal la ilaaliyo sow carag kama keeninin oo uma baahna in la eego iyada lafteeda inkastoo xildhibaanku uusan la qabintaa horta xildhibaanka markii horena waa sheegay wax badan kuma kala duwanin injineer yarow shariif waxa weeye waxaan maraynay waxbaan wada leenahay oo soomaalidu waa isku mid dadka wada hadlayay oo dhan oo maaragtay kasoo qaybgalayaashayna sidaasay lahaayeen horta annaga dad soomaaliyaan nahay isku midaba isku dad ah isku deegaan ah waxayna maraysay inaan guri wadaagno oo xildhibaan maxamed dalxay wuxuu sheegay gabadha in la bixiyey oo la siiyey maaragtay inankii dadka saa wax u wadaaga oo dhaqan iyo deegaanba wadaaga oo waxa weeye dawladdii wadaaga haddee arrintaasi maaragtay cara hadday ka keentay dib ha u noqdo dadka xuquuqdiisa ha helo deegaanna ha ku helo qabiilna ha ku helo soomaalinimona ha ku helo dadkaasna dad sharaf la weeye dad xoog ku shaqaysta weeye dad wax soo saar sameeyo weeye ama xagga beeraha ama xagga farsamadaba dad maaragtay soomaaliya ka ah boqolkii yacni xagga farsamada 30 oo kale bay noqonayaan dad wax soo saar la weeye xoogna ku shaqaysta tagoo maaragtay aan dhibna lahayn dadka dhibaatada geysta ahayn aad baana ugu mahadcelinayaa laakiin ma joogto in la kala foqooqo iyagana gaar lagu waardeeyo marar badanna wuxuu ka hadlay in maaragtay intaasoo gobol dawladood ay ku nool yihiin marka haddee ekaanshay noqonaysaa iyo midab kala sooce dadka u eg in loo hanala xawila inuu yidhaahday ahayd ma og tahay sida kenya oo kale iyo tanzania iyo baa kaga fiicnayd inuu halkaa gaadhsiiyo yidhaahdo innagoo soomaalina ahana la kala qobasaamina aan yeelano waa tahay waxaan rabaa inaan wax yar ka hadlo cabdinuur wax yar waxaan ka leeyahay arrintii maaragtay arrintan saldhigga u ahayd oo inankii iyo inanta horta meeshan dembi baa ka dhacay dembigaa dhacay ee aan abid horey loo arag waxaa rabaa dadka cadaalad inay helaan
واكو haddana waxa dawladdu waxay tiri aroos qaran baan u samaynaynaa gabadha hooyadeedna waa xiran tahay waxaa la rabaa wax ku filan oo gurigii dhisaya oo nidaama in la sameeyo dadku xaq waxay u leeyihiin dadkii dhibaatada sameeyey dhammaantood in la keeno sharciga la mariyo haddii qisaas ku helaan oo ay yidhahdaan noo qisaaso ay qisaasaan loo soo bandhigo inay marka qaataan inay cafiyaan laakiin waxaa la rabaa arrintan gaadhay adduunka daafaheeda oo baraha bulshada la dhigay oo soomaali oo dhan ka qiirootay ka tacsiyeysay waxaa la rabaa beesha walaalahayaa oo haddeer xadkaa gaarsiisan inay maaragtay dee waxa weeye sida arrintaa uga kulliyihiin baan uga xunnahay ugana kulannahay laakiin waxaan rabnaa inaan qoyskayagii si wada jira uu noogu dhismo arrintaasna in xalkeeda ay soo dhaweeyaan annaguna aan diyaar ula noqono arrintaas xal in lagu dhameeyo labada dhinac oo arooskaasi ma sii jiri karayo inantii hooyadeed xiran tahay oo waxaa la rabaa wixii inuu sii mira dhalo oo yacni waxaa loo bixiyey jacaylkii qarniga ma ogtahay arrintan marka waxaa rabaa inaan iyo injineer yaraysow waxaan rabnaa dhankiina inaan arrintan waa tahay xildhibaan dhalxaaba magaalada muqdisho joogo arrintan kulli nooga xoogaalsan baan u malaynayaa xildhibaan waan maqlayaa runtii hogaamiye dhaqameed maaragtay inta tala fiican uu ka yidhaahdo ayuu soo gabagabeeyey sheekh cabdiraxmaan balse halkan iyo waxa ka socda saddex geesood bay xaaladdu maanta ay tahay dadkii wax runtii iyaga dhibka ku dhacay ama dhinacii kale ee dhibkii isaga geystay iyo dawladdii udhexaysa saddexdaasi wax hadda dheeraad ah waxaa ku ah bulshadiiyo tala bixin oo siyaabo kala duwan ooga imaanayso oo dareenka iyada ay muujinayso oo ay ku kala duwan tahay laakiin cabdinuur mar weliba malaa'ig ma soo degayso wuxuu noqon karaa ra'yiga kama dambaysta kan dadka soomaaliyeed ee mar weliba oo in la qadariyo oo iyaga dib eegis lagu sameeyo oo sida xal lagu heli karo oo ilkana ay ku nabadgalaan oo xeegana lagu xadto kulliba waa arrin lagama maarmaan sidii soomaalida dhaqan ahaan lagu yaqiinay wixii hadda taagan haddii dhibaato ay tahayna sidii xal loogu heli karo dhibaatadaasina inaysan soo noqnoqoninna haddii diyan iyo dunyawiyan ayadana ay caqli iyo dad maaragtay oo xigmad ehel u ah ay wada wadaagaan laakiin see xeega lagu xagtaa ilkana ku nabadgalaan qoyskii see la isugu keenaa dhalxa qoyskii see la isugu keenaa gabadhii wiilkii hadda way is haystaan gabadhii iyo hooyadii oo xiran iyo abtiyaasheedina qoyskii marka weli khalkhal ka bixi maya marka sidee waxoo dhan ugu wanaagsan in laysu wada keeno soomaalidu waxaa anaga halkan maamaha waxaa jirta gacan jirta gun bay dhex taal ereyga gun xagga wax kala loo yaqaanaa laakiin inta cagsigeeda goftaa loo yaqaanaa gacan hadday jirto gun bay dhex taalla ama gubay dhex taalla ayada inay ka arrinsato soomaalidana talada iyo ra'yiga iyo tan dawladda iyo shuruucdana wax iswaafaqsan ee diinta islaamkana ay ogoshahay kullay wax ka baxsan ma soo geli doonaan waxaana aan rajaynaynaa si ay wax ku hagaagaan dadka soomaaliyeedna qancisa dawladnimo iyo dadnimo isagana qofka muwaadinka soomaaliyeed ugu xisaabtami lahaa shalayba waan ognahay dadkani marka la dilo looma ooye looma aare ayaa la oran jiray maanta in loo ooyey isla markaasna loo hadlay dadka soomaaliyeed ee ay u aaseen si geesinimo oo nin maanta qiimaho maanta halyey oo kale ayaa laga qaaday meydkiisa dikfar ilaa iyo barakaad baa garab lagu geeyey qiimayn maanta dadka maanta ay u sameeyeen shacbiga soomaaliyeed sidii loogu durdurin jiray waxaan rajaynaynaa inaana mar kale dadka soomaaliyeed ogolaanaynin in loogu durduriyo waxa dadka soomaaliyeed marka tani waa cashar baad leedahay doonaan dadkan dadka weyn gaar ahaan anoo weliba ugaad lahay magaciisa inaan ahay waa tahay xildhibaan maxamed cumar dhalxa mudane ka tirsan baarlamaanka federaalka ee soomaaliya oo khadka kaga jiray magaalada muqdisho iyo injineer yarow shariif oo isna khadka kaga jiray magaalada Cardiff ee dalkan Ingiriiska iyo nabadoon Cabdiraxmaan Jaabiri oo isaguna garow kaga jiray khadka oo naga ogolaaday maantay si aad maqlayseen tala fiican ka dhibtay doodii iyo dhageystayaashii ka qayb galayba dhammaantiin waa wada mahadsantihiin